Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa taxanaheennii iyo nidaamkeennii fee collection system. Waxaynu maraynaa qeybteennii saddexaad. Qeybta hore waxaynu kusoo samaysanay shaqo badan bay runtii soo qabanay. Qeybtan oo kale ayaynu dhamaystirnay iyo waxyaabihii hore aynu ka dhignaa. Waynu sii wadi doonaa. Waxaynu maanta soo bixin doonaa ardayda iyo class walba, yani ardayda dhigata iyo section walba qeybta dhigata ayaynu soo saari doonaa. Ugu horreyn waxaynu ka bilaabi doonaa section A yaa dhigta, saas oo kale ayaynu soo saaraynaa. Mid walba isku xijinaynaa B iyo C, sidoo kale ayaynu soo saaraynaa. Ugu horreyn waxaynu adeegsan doonaa equation ayaynu qoran doonaa. Wax walba Excelka qaacida markii la qorayo equal ayaa loo horsiiyaa. Kadibna waxaynu isticmaali doonaa count ifs ayaynu isticmaali doonaa maanta. Sababtoo ah count ifs waxaynu u baahanay laba xaaladood inay is dhexgelin doonaa. Marka koowaad inaynu soo saarno classka form 1 waxa dhigta ardayda dhigata, oo kadibna aynu soo saarno sectionka ardayda dhigata. Okay. Marka waxaynu aadi doonaa table-ka aynu wax kasoo tirinaynaa waa fee collection. Waxaynu rabnaa inaynu soo saarno meeshaan ka soo saaraynaa waa maxay? Waa ugu horreyn waa class. Kliga ayaa siinaya, kadibna waxaan qabanayaa control shift iyo down arrow-ga. Waxaan leeyahay waxaad iga soo qabataa xaggan intaan comma iraahdo. Comma ayaad dhahaysaa, kadibna waxaad leedahay waxaan u baahanahay halkan form 1 ayaan uga baahanahay. Waad iska xidhaysaa. Comma ayaad sii leedahay. Waxaynu kale u baahanahay sidana sectionka, ilaa section ayay raadinaynaa. Sectionkana waxaan uga baahanahay A yaa ka dhigta. Form 1A waxa dhigta ayaynu u baahanahay. Kadibna waynu iska xidhi doonaa. Enter ayaynu leenahay. Laba qof ayaa dhigta. Marka isma dhamayno qaacidadan ayaynu koobiyeyn doonaa. Copy ayaynu leenahay. Kadibna kan ku xigay ayaynu tegaynaa oo paste ayaynu ku dhahaynaa. Xaggan waxaynu ka dhigi doonaa, maxaynu ka dhigaynaa B ayaynu ka dhigaynaa. Kadibna enter ayaynu sii leenahay. Xaggan waynu tegi doonaa. Control V ayaynu ku leenahay. Kadibna xaggan waxaynu ka dhigaynaa C. Good. Intaa waa haysanaa. Kana isagana tegi doonaa. Isla qaacidadii ayaynu ku paste garaynaynaa. Xaggan eedaynu u daynaynaa, laakiin xaggan ayaynu markan waxaynu ka dhigaynaa form 2. Good. Kadibna enter ayaynu leenahay. Haddana tan oo kale iyadana waa ku paste garaynaynaa. Xaggan waxaynu ka dhigaynaa B ayaynu ka dhigaynaa. Kana waxaan ka dhigi doonaa form 2. Kan laftigiisa isagana sidii oo kale ayaan sameynaynaa. Xaggan form 2 ayaynu ka dhigi doonaa. Qaybtana waxaynu ka dhigi doonaa C. Intaasna wayna ka dhan tahay. Kana sidoo kale ayaan ku sameynayaa. Eedan waan u daynayaa, laakiin xaggan waxaan ka dhigi doonaa 3. Intan haddaba aan iskaba koobiyey si aan mar walba u bedbedelin. Fiide. Xaggan baynu ka dhigaynaa B. Enter. Xaggan waxaynu ka dhigi doonaa control fiide. Xaggan baynu ka dhigi doonaa C. Enter. Okay, kana sidoo kale isagana waynu tegi, kadibna V ayaynu ku leenahay. Markan xaggan waxaynu ka dhigi doonaa 4. Waynu koobiyeynaynaa control C. Okay, xaggan isagana iyadana control fiide. Xaggan waxaynu ka dhigi doonaa B. Xaggan waxaynu ka dhigi doonaa markan C. Good. Intaas waa ka dhan tahay. Xaggan waxaan ka baahan yahay inaynu kusoo bandhigno totalka mid walba. Okay. Totalka mid walba waxaynu xaggan oranaynaa equal. Kadibna waxaan leenahay sum function ayaynu isticmaalaynaa. Waxaana isugu soo keen darayaa intan weeye. Kadibna waxaan leenahay enter. Intan iyo koobiye control Z. Xaggan tag control V. Xaggan tag control V. Xaggan tag control V. Control V. Oh, sorry. Control V. Okay. Xaggan automatic ayuu qaadanaya ujeeda xaggan isugu keen darayaa.
okay kana saa ujeedid automatically saa u qaadanaya, kana sidoo kale automatically saa u qaadanaya. Okay, inta waxaan rabaa inaan color gaar ah ka dhigo si ay uga muuqdaanin. Color ayaan siin doonaa kanoo kale, farta waxaan ka dhigi doonaa caddaan, bold ayaan ka dhigayaa, size-kan xoogaa baan kordhin doonaa. Intaan iyagana size-kooda waynu kordhin doonaa, bold ka dhig. Okay, color gaar ah waan siin karnaa xaggan, saan waan ka dhigi karnaa, fartana weight waan ka dhigi karnaa, simple. Dookaaga ciyaar adii kaa rabtid, sidaa rabtid u gal. Intaas iyadana way inaga dhan tahay. Waxaa kale oo jirta in yaro conditional formatting ayaan ku daray. Data bariskan ayaan tegayaa, kadibna waxaan ka dooranayaa sidii colorkan camal, kana sidoo kale conditional formatting, data baris, kadibna kan ayaan ka dooran doonaa. Nice. Kuwan laftigooda iyagana inaan ka mid u doorno, data bariska tagno, kanoo kale kaa ka dhig, kana aan ka dhigno camal coloradii hadda ma xasuusti, kaasoo kale aan ka dhigaynaa maadaama ay lacag maqan tahay. Kan xiga oo kale waxaynu ka dhigi karnaa kan isagana, kan xigana blue camal, kanna waxaynu ka dhigi doonaa okay, kan isagana kanaynu ka dhigi, ka ugu dambeeyana waxaynu ka dhigi karnaa something like good. Okay, haddaba waxaan rabaa kuwan inaan kala yara durkiyo. Si aan kala yara durkiyo kuwan horta waa inaan iska loo garayaa. Waan dooranayaa, shift ayaan qaban doonaa, shift iyo left click, right click ayaan ka wadaa, kadibna waxaan leeyahay control+1 ayaa isla taaban doonaa. Control+1 qaybtan waxaan tegi doonaa, qaybtan tan dooran doonaa, kadibna properties ayaan tegayaa. Xaggan waxaad uga jeedaa maaragtay move but don't say with cells, don't move or say cells ayaan dooran doonaa, kadibna waan iska xidhi doonaa. Good. Hadda marka kan haddii aan rabo inaan hoos yara durkiyo si aan space u helo, kana sidoo kale igama raacayaan saa ujeedid, kana sidaas oo kale, kana saas oo kale, kana good. Saas u durdurkiisa adiga weynayso batiimo taqaanaa ku qanaysa. Kan waa iska delete garayn doonaa, space-kaas faraha badan ma rabi, aan isku soo yareyn xoogaa, kadibna qaybtan aan isku furi doonaa xoogaa, kadibna color ayaan siin doonaa, more colors ayaan dhahayaa, kadibna like this camal custom saas camal aan ka dhigo. Good. Colorka adiga kaa rabtid ka dhigo dookaaga ayaan. Intaas iyadana way inaga dhan tahay. Waxa inoo xigi doonaan u malayn examska. Yes. Okay, tableka examska waxaan inuu ka baahan yahay inaynu bal horta soo saarno tablekan, inaynu ka doono student ID-ga. So waxaynu isticmaali doonaa equal, kadibna waxaynu leenahay if error ayaan leenahay, kadibna waxaan leenahay index. Okay, waxaynu kasoo raadin doonaa tableka v collection, waxaynu raadinayna waa student ID, marka waa gaarsiinaynaa highlightska, control+shift+down arrow waa isla qaban kartaa. Intaa marka aan haysano waxaan leenahay marka comma markaan dhiraahno waxaynu sheegaynaa rowga inuu ka bilaabayo waa examska ku noqonaynaa, kadibna halkan nooga soo bilow D1 ayaad nooga bilaabaysaa, kadibna waxaan leenahay
naga xidh com ayaan leenahay kadibna okay double quotation maran kadibna enter ayaan leenahay good id 001 xagan id 001 waa ka jira okay way haddaba qaacidada maxaan uga jeedaa waxa weeyaan if error haddii yacni cillad ay timaado waxaad noo soo display garaysaa meel maran haddii aan id jirin meesha yani wax maran noo soo display garay ama haddii error u jiro no value oo kale marar soo qoraa marka no value intay heli lahayn ha iska marnaado haddii error aan jirin indexkan waxaa kasoo raadiyay tableka fee collectionka columnka student id id-yada ku jira ha nooga soo raadiyay kadibna row d1 laga soo bilaabo intaa ha noogu soo haddii d1kan aan ka jaro wuxuu rowyada halkan wuu overrating buu sameynayaa oo wuxuu ka bilaabi doonaa row 7 sidaa darteed ma rabno in kii hore lagu dul qoro mid kale kii hore ayaa rabnaa waxaan ka soo markaa inaan ka soo bilaabnaa kowga good intaa markaynu haysano qaacidadii imika dhulkan ma gaarsiisna soo qaacidada iska fogeyso waxaad sameynaysaa hajiid ilaa xagga hoose meelaha hoose oo kale iska geyso good hadda waxaynu haysanaa id-yadii oo dhammaystiran haddaba waa inaynu id-gan magaciisii waa inaynu soo display garaynaa okay so maxaynu isticmaalaynaa marka waxaynu isticmaalaynaa function la yiraahdo xlookup vlookup baa la isticmaali jiray laakiin hadda waxaa la keenay waxaa mataqan update-kii ugu dambeeyay la socda ilaa 19 xlookup so xlookup ayaynu isticmaali doonaa iyada ka advancedsan vlookup xlookup ayaynu leenahay xagee wax ka value-ga aan wax ku search garanayna waa maxay waa student id ayaynu leenahay kadibna waxaan leenahay comma markaanu idhaahno waxaynu aadi doonaa tableka fee collection kadibna waxa weeyaan waxaynu magaca ku raadinayno muxuu noqon doonaa haddaba waa student id-ga ayaynu ku raadin doonaa control shift ilaa iyo down intaas waxa weeyaan id-ga tableka inuu ku jira haddii uu xaggan ku jiro waxaad noo sameysaa comma ayaan leenahay waxaad noo soo raadisaa isla tableka fee collection waxaad nooga soo qabataa nameka id-gaas leh nooga soo qabo haddii aad waxba intaas ka soo weydidna waxaad noo sameysaa ha iska marnaado just hana wareerin good magacyadii oo dhammaystiran baynu haysanaa maadaama 12 id haysano haddii imika xaggan waxbuu iska soo zero iska soo qori doonaa haddaynu ka saarno yani ha iska marnaadadaas marka ma rabno inuu zero iyo waxaas ka soo muujiyo meesha saa darteed waxaynu gelin doonaa ha iska marnaado double quotation maran ayaan geli doonaa okay xlookup waxay iisoo xaggani waxay ka eegaysaa inuu id ku jiro id-gaas way tagaysaa tablekani aadaysaa kadibna waxay iisoo eegi doontaa id-gani xagga hadduu ka jiro magaca uu leeyahay ayay iisoo qaban doontaa haddii aan wax magaca lasoo helina siirooyada iyo waxaas ma baahani amaba no value-ga ha iska marnaado ayaan leenahay good isma wareerinayno haddaba waxaan sameyn doonaa intan ayaynu koobiyeyn doonaa control c ayaan leeyahay control c markaan idhaahdo waxaan tegi doonaa xaggan waa ku paste garaynaya control v ayaan leeyahay kaliya waxaan bedeli doonaa qaybtan macnaha student name-kan ayaan bedeli doonaa waxaynu hadda u baahanay waa maxay waa class tab ayaynu ku leenahay kadibna u fiirso classyadooda ayaa inoo soo boodaya sidoo kale xaggan waynu tegaynaa control v ayaan ku leenahay ku paste garaynaynaa xaggan waxaynu ku bedeli doonaa iyadana section isagaa noo soo qaban doona automatic sectionka tab ayaan ku leeyahay kadibna u fiirso waxaa dhaca mid walba iyo classkiisii xaggana waxaad gashan doontaa waxaan gelin doonaa waxaad gelinaysaa maadooyinka yani natiijooyinkii ayaad gelinaysaa okay waxa inoo harsan haddaba waa total marks inay soo saarno okay waxaan ku heli doonaa total marks iyagana equal ayay leenahay waxaan inaka rabaa maxaa horta lagu helayaa total marks waa inaynu soo mataqaanaa isku soo dardarno waa isku darka maadooyinkan sidaa darteed waxaynu isticmaali doonaa sum ayaan leenahay waxaan isugu soo kaya dartaa natiijooyinka ku jira halkan ilaa iyo halkan kadibna enter ayaan leenahay hadda maadaama ayna wax natiijooyin ay ku jirin waxay noo soo xisaabin doontaa waa maxay waa 0
ayay noqon doontaa. Okay, now aan soo saarno haddaba percentage-ka maadaama aynu total marks-ka haysano. Waxaynu iyadana isticmaali doonaa calaamadeena equal. Kadib waxaan leeyahay total marks-kan. Okay, aan ka horeysiiyo open parenthesis. kadibna aan leeyahay waxaad u qaybisaa inta maada aynu haysano. Inta haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waa 9 maado. 9kaas oo min 100 ah. kadibna ku xidh parenthesis-ka waxaan ku dhufan doonaa haddana 100. Good. waxa iyadana inoo hadhay resultigi. resultigana banayno iyadana soo saarno. iyadana waxaynu oran doonaa iyadana waxaan isticmaali doonaa xaalad bay ku xidhi doonaa. waxaan isticmaali doonaa if haddii percentage-kani okay percentage-kani haddii uu la mid yahay zero ayaan leenahay. zero haddii uu la mid yahay ha iska marnaado. haddii kale waxyaaba aan loo baahnayn ayuu haddii kale soo muujinaya. kadib haddaba halkan xaaladda saxda ka bilaabana waxaan leenahay if haddii percentage-kaasi haddii uu ka weyn yahay ama la eg yahay 50. haddii 50 ama uu ka weyn yahay ama uu la eg yahay waxaan ka rabaa inaynu soo muujino in rahan qofkaasi waa pass. qofkaasi wuu gudbay. haddii kalena waxaad soo muujisaa fail ayaan leenahay. kadibna enter ayaan leenahay. haddaba iska marnaanayaan sababtoo ah xaggan wax natiijooyinahay ay kuma jiraan. haddaba waxaynu iyadana intan waxaynu ka rabaa inaan conditional formatting ku darno. kadibna waxaan leenahay equal to wixii pass ah waxaad siisaa waxaan green fill yes kaasi mar labaad aynu ku celin doonaa. waxaan leenahay equal to kadibna waxaan leenahay light red kaasi wixii ah fail. waayahay bal aan natiijo haddaba halkan iska gelgelino. hadda fail baa u qoran laakiin markaynu u dhammaystirno wuu isbedeli doonaa oo fiirso. okay xaggan aynu khalad ka sameynay. qofkani waa pass waa 83.3 so kan point 33. okay aan soo yareyno 0.33gaas in ka dhigno. xaggaas haddana marku dhufan kartaa. good. saas waad isu gelgelin doontaa. yacni hadda waqtigeena ka cuni doontaa haddii isna maanta gelgeliya. waynu kasii gudbi doonaa. kan saas waynu kaga dhan yahay saan filayo waynu ka dhan yahay. waxaynu usii gudbi doonaa search hawsheeda baynu geli doonaa. haddaba iyadana iyadana haddaba maxaynu adeegsan doonaa baa isweydiin mudan. search waxaynu adeegsan doonaa iyadana isla xlookup-taynu hore usoo adeegsanay. waxaan leenahay xlookup okay lookup value-gan wuxuu noqon doonaa id-gaynu halkan geli doono. marka halkaas ayay dooran doonaa e9 ayay shaqadeenu ka socon doontaa. kadib waxaan leenahay comma waxaynu aadi doonaa tableka fee collection-ka. waxaynu dooran doonaa id-ga in wax ku search gareynaynaa waa maxay waa id-ga. waxaynu haga gelinaa in xagga laga soo helo rabaa. markan meeshan search aan joogno column-ka aan joogno waxa ka soo muuqan doona waxa weeyaan waa name-ka. sida awgeed waxaan leenahay magaca waa return value-gii meesha lagu soo celin lahaa. magaca noo soo celi ayaan leenahay. kadib intaa wixii ka soo haraa waxaan leenahay ha iska marnaado kadibna ku xidh. amaba waxaan gelin karnaa sida kii hore bay noogu qornayd not found
ayaan dhihi karnaa. Hadda waa not found oo kan inaga qaatay table ka saaraynaa range caadi oo bedeli doonaa. Marka kan qaacidada uma baahnin. Okay. Good. hadda bal id aan gelino inuu xog inoo soo celin doono 001 oo kale. Farxiya Ali Siciid ayaa iskale id-gaas. waan koobiyeyn doonaa control c ayaan leeyahay enter maadaama marka hore si automatic u qaatay aan ka bedbedelo xaganba waa ku jirtaa qaacidadii, laakiin waxaanu bedeli doonaa xaggan student id-ga ma rabno. waxaynu u baahannahay maxay noqonayaa, waxaynu u baahannahay maxay waa classka. tab ayaan leeyahay enter baan sii leeyahay. xaggan iyadana iminka uma baahni student name-kan. waxaan u baahannahay sectionka. mar aan ku xidho okay not found maxaa waaye this is the problem. laakiin magaca halka ma rabnee, waxaan rabnaa okay waxaynu u baahannahay fig okay aan aadna okay student id coma ayaan leeyahay. haddana tableka ku noqo. waxaan u baahanahay status yes qofka statuskiisa ayuu u baahanahay. statuskiisa qofkan waa paid. xaggan not found-ga amountiga ayagan xaggan waxaan u baahannahay amount paid. sorry kan aynu u baahannahay. xaggan khalad bayn ka dhacay. statuska maaha waxaan rabno. waxaynu u baahannahay waa amount paid. kana waxaan khaladnay isagana balan ku noqono amount due tab ayaan leeyahay. laakiin xaggan ayaa problem ka jira. aan saxno. kana waxaynu u baahannahay statuskiisa status good okay kan problem good so intan oo dhan waxaan rabaa inaan leftiga geeyo ama right-kaba waa u diin kartaa ama centerka ama leftigeedaas baan iskaga diin inkastay xagga ku qurux badan tahay. xaggaasaan diin kaas wuu inaga dhan yahay. marka kalar yar aan siino blue ama kana aan siiyo saas camal. okay labada ma baahni
delete upgood kana isagana haddaba inoo haray waxaynu isagana samayn doonaa isla waxaynu isticmaali doonaa tii aynu hadda isticmaalay oo ahayd xlookup ayaynu isagana isticmaali doonaa waxaan leenahay marka equal xlookup oo xaggan ku qorayaa sorry waxaan leenahay equal xlookup value waa kan markan waxaynu shaqada ka qaban doonaa comma ayaan leenahay kadibna waxaynu aadi doonaa tableka exams waxaan kasoo qabsan doonaa id-ga markaan kasoo qabsano waxaynu sameyneynaa comma ayaan leenahay haddana waxaad noo soo qabanaysaa student namekaas kadibna waxaan leenahay comma waxaad kaga soo qori doontaa not found okay automatic uu qaatay waa converted to range dheh kan adiga may akay xaggan haddaba si aynu maanta dhan ma qori karnee guurkaas waa inoo sax laakiin kan waa inaynu nidhaahnaa kaas ku bedel xaggana hadda student name ma rabnee waxaan ka rabnaa classka enter xaggan iga bedel kadib xaggan waxaan u baahanahay sectionka xaggan waxaan u baahanahay total marks xaggan waxaan u baahanahay percentage soo gaabi percentageka kana iga tuur student name ma rabi waxaan u baahanahay result good kuwana iyagana aan laftiga geyno good waxaan rabaa inaan yaro bold ka dhigo sis yaro siiyo kuwan laftigoodana highlight garee bold iga dhig siska yaro weyni good hadda waxaad ujeedaa bal 2 aynu gelino xaggan maadaama aynu xagga ka maamuleyno 2 cabdinuur fontary laakiin wax mataqaanaa ninka lacaga lagu leeyahay qeyb uu bixiyey total markiis waa 0 wax kasta waa 0 laana natiijo uguma jirto isaga great hawshaas iyaduna weyna ka dhantahay waxaan filayaa waxa inoo haray top 10kii ardayda top 10ka okay top 10kan horta tableka waa inaan ka saaraa haddii kale ima soo muuqanayso xog waa ina range caadi ka dhiga kadibna waxaan samayn doonaa xog ayaan inoo kusoo guri doonaa marka xoogaa xawaarahan dheerayn doonaa markaasi soo laabanayna insha allah okay xog yar ayaan inoo kusoo gelgeliyey si aan ugu shaqaysano haddaba imika waxaan soo saari doonaa top 10 studentska haddaba ugu sarreeya classka okay
amaba imtixaanaadka galaaskayaan oranay. Table-keeni ayaan tegi doonaa top 10-ka. Haddii table uu yahay table-ka ka saaro converti ku dheh range caadi u bedel. Kadibna waxaynu oran doonaa waa filter gareynaynaa. Waxaan isticmaali doonaa function la yiraahdo filter. Waxaan leeyahay filter ayaan leeyahay. Kadibna waxaynu filter gareynaynaa waa maxay? Waa table-ka exams. Waxaynu comma ayuu leenahay. Kadibna haddana waxaan sii leeyahay waxaynu filter gareynaynaa waa maxay? Waa percentage-ka kor iyo hoos baan gaarsiin doonaa. Intaa marka aan sameeyo waxaan samayn doonaa waxaan leeyahay greater than or equal to. Kadibna waxaan leenahay large function ayaan isticmaalinaa. Kan hore waxay ku dul wareegin doontaa soo fiirinaysaa qiimayaasha ku jira percentage-ka oo dhammaystiran. Kadibna waxay sameynaysaa in isbarbardhig aan ku sameyno marka labaad. Isaga ayaan ku celinaynaa kor ilaa iyo hoos. Tan dambe waxay sameyn doontaa waxay inoo soo celinaysaa waxaan rabnaa inay inoo soo celiso 10 arday ee ugu qiimaha sareeya amaba ugu percentage-ka sareeya inay inoo soo celiso ayaan rabnaa. So qofkan oo kale Farxiyo Cali kaalinta lagala bixi doonaa waa fail iyadoo maba soo noqon doonto. Intan meesha ku jirta waa 12kaas qof 10ka ugu percentage sareeya ayaan inoo soo qaban doonaa. So waan iska xiri doonaa. Waxaan niri percentage-ka tag soo filter garee ku soo wareeg qiimayaashooda oo dhan. Kadibna isbarbardhig. Kadibna waxaad nooga soo qabataa 10ka ugu qiimaha sareeya amaba ugu percentage-ka sareeya ugu number sareeya. Inta ayaan dhihi doonaa great. Number 1 meesha kuma jiro sidaan soo sheegnay wuu ka baxay. Waxaynu haysanaa 2 3 4 5 6 7 ilaa iyo 9 ilaa iyo 10. Okay, there's a problem marka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waa saxanahay. Sorry waxay khalday ID-ga waxaan u maleeyay inay 11 soo celinayno. Haddana arkay inay 10 tahay. Maadaama 1 uu meesha ka maqan yahay ilaa iyo 11 ayaan inoo soo celin doonaa sababtoo ah intani waa 10ka ugu sareysa oo bal waxaan soo gelin doonaa u fiirsada hadda intaas screenshot ka qaata 1 ilaa iyo 2 ilaa iyo 11 wuxuu u dhaxeeyaan Soomaa. Bal waxaan soo gelin doonaa hal qof oo wada haysta wada 100. Inta ma leekaysiin doonaa soo ma jeedaan. Kadib waxaan sameynayaa bal top 10 aan ku noqdo u fiirsada hadda waxaa wakaas 13 ayaa meesha soo galay. 13 de muxuu haystaa gabigiisuba wuxuu haystaa wada 100. Kaalintii buu kala baxay. Qof buu kaalinta kala baxay. I think so 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ayaa kaalinta laga baxay. Saa u jeedid qofkii hee 12aad kaalinta laga baxay 13 baa soo galay. Saasay u soconayaan marka qofka uu ka percentage badan yahay ayuu soo kaalinta soo celinsan doonaa. Waxaan filayaa system-keeni inuu intaas kaga dhan yahay. Shaqadii dhamaystirnayd oo qabanayeen intaas ayay ahayd. Xaggan oo kale waxaynu ku qori doonaa classes info. Okay, kadibna bold ka dhig dira turki. Xaggan waxaan ku haysanaa classes info. Waxaan filayaa xitaa design-keeni inuu ka dhan yahay ayaan jeclahay. Qaybtan waxaan kaga dhan fee collection system-kii ayaan kaga dhan. Okay, xaggan isagana exams-ku inay ka dhan yihiin. Waxa kale oo iyaduna in ka dhan saan jeclahay. Search-kii isna waa isna ka dhan yahay. Bal hadda 3 aynu xaggan ku bedelo waxa soo bixi doonaa 3 waan haysanaa waa status waa pass. Okay, labadan marka labadan aan rabaa inaan bedelo kan oo kale waxaan ka dhigi doonaa okay equal wixii oo unpaid waxaad siinaysaa saas u daa. Laakiin wixii paid ah wixii lacagta paid ay tahay lacagtooda waxaad ka dhigi doontaa green good
kan isagana sidoo kale wixii baas ah waxaynu ka dhigi doonaa yellow ayaan ka dhigi doonaa maadaama tabilku cagaar yahay. Wixii oo equal to wixii fail ah waxaan usoo qori doonaa red. haddii xaggana waan ka dhigo u fiirso good, xaggana waa fail because qofkaas wuu dhacay, laakiin lacagtii waa bid, lacagtiisu lacagtii wuu bixiyay. I hope inaad systemka wax badan ka faa'iideen. channelka aad subscribe inoogu cimaamad doontaan. insha Allah wixii su'aalaad qabtaan commentiga ayaad inoogu reebi doontaan. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.